munaasabadan oo ay ku qalin jabiyeen 310 arday oo ka baxay jaamacada Adna ayaa lagu qabtay magaalada Hargiesa. Adna Aadan Ismaaciil aasaasaha jaamacada Adna ayaa faahfaahin ka bixisay ardayda qalin jabisay iyo kuliyadaha ay dhameysteen. 310 ka maanta halka ka soo baxay tiradu ma badna waa ogahay laakiin jaamacada Adna Aadan annagu uma tartano tiro uma tartano inta soo doonata imtixaan baan ka qaataa inta ugu sarreysa ee imtixaanka ka soo gudubta ayaa qaadanaa waan idin wada duceynayaa hooyo waan idin hambalyeynaya hooyo waxaas ma suura galeen tabarkiina suma suura galeen anigu halka maanta maan joogin oo idin ma soo noqdeen haddaan wadankayga Soomaaliland aanu nabada qaadeen waxaan doonayaa cilmiga aad barateen inaad dadaal barbar socdo raacsan inaad wadankiina jeclaataan baan doonayaa inaad dibindaabyada ka ilaalisaan dibindaabyada ku haya ka ilaalisaan baan doonayaa waxaan doonayaa inaynu nadaamkeena iyo wanaaggeena iyo quruxdeena isma arkaysana quruxdiinaas baad ilmaynka ima lahayd quruxdiina hadda halka aad joogtaan wasiirada wasaaradaha waxbarashada iyo sayniska Axmed Maxamed Diiriye Toorno xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi diintii oo qaafta Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Mahdi Cismaan Buuri oo munaasabada qalin jabinta hadal ka jeediyay ayaa waxa ay ka warameen qiimaha ay leedahay waxbarashadu iyaga oo ardayda ku bogaadiyay dadaalkii dheeraa ee ay ugu soo dhabar adeegeen waqtigooda waxbarashada markaan buraayad Soomaaliland ma aragtay bashadana ilaa ay tuulo walba ka helo PhD tabaandada ku sita iyo mid ku sita wadnaha PhD ku sita iyo mid ku sita horticulture ma dhawo wali farqa ma badna khayra ku gaarna shariga adda salaama ma inoo bilaabay maanta waynaga sagaaliyo labaatan marna inuu ka soo baxo garaafka oo ay ku biiro garaafka ay dhimashadu ku yartahay hooyooyinka iyo ubadka oo ay dhahaan waxa sababay aqoonyahankeena iyo ubadkeena wax bartay ayaa positionkaaga gaarsiiyay bacda Allah taasaan runtii ka dooranaa waxaan ugu hambalyeynaya waalidiinta ku soo dadaalay ee u tacbay maal iyo naf la soo dhilac taagnaa dhalinyaradaas aqoon-yahanada ee maanta inoo soo baxay ugu dambeyn dabtaar ka siinay dhalinyarada xogeeye aqoontii bay dhammaaneen cilmigii buu dhammaanin furayaasha cilmiga ayuu baa laydin dhiibay laakiin waa la doonayaa inaad researchers noqotaan dad cilmi baarayaal aqoon-yahana oo jaamiciyiin ku mutaystay kelmadda jaamici mutaystay inaad noqotaan ayaa la rajeynaya oo idinka doonaynaa insha allah waxa laydinka doonayaa waalidkii caynka ahaa inaad u samafashaan inaad dalka u samafashaan inaad ciidda u samafashaan inaad diinta u samafashaan inaad calanka u samafashaan inaad wasaaradda caafimaadka la shaqaysaan inaad iskaaga garab taagtaan kuwan xilka ku wareejinayna inaad noqotaan waxaan idinku ducaynayaa ilaahay wax kastoo qabanaysaan waa Allah idinla qabto gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Axmed Yaasiin Cali ayaan loo munaasabada qalin jabinta soo afmaray ayaa ka waramay kheyraadka dabiiciga ah ee ku duugan dalkeena hooyo iyo sida ay dhalinyartu uga shaqo leeyihiin waxaanu booriyay in dhalinyarada waxbaratay loo baahan yahay in ay iyagu camalka abuuraan waxaad tihiin resource-kii ummadani lahayd human resource-kii ummadani lahayd baad dalkeenu waa dal curdina walaalayaal wuxuu u baahan yahay inuu human capitalkiisu dhismo warwar kama qaba anigu Axmed Yaasiin ahaan ardayda faraha badan ee jaamacadaha ka soo baxaysa bal waxaan u arkaa fursado waaweyn oo mustaqbalka wadankan iftiimin doona